kula wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ruushka iyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine. Waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid noqon doonaan wadamada Mareykanka iyo Ruushka ma waxay isugu hanjabayaan hubka nuclear-ka. Waxa kale oo aan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda xilligan iyo magaalooyinka ay ciidamada Ruushku ku hareeraysan yihiin. kolaya baabuur ah oo ay leeyihiin Ruushku oo saacadihii la soo dhaafay la filayay inay ku wajahnayeen magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine oo ilaa iyo hadda aan gaarin iyo halka ay ku dambeeyeen oo la isweydiinayo. Halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa xaalad bini'aadamtinimo ayaa laga soo sheegayaa magaalooyin ay la wareegeen ciidamada Ruushku ama ku hareeraysan yihiin, waxaana ka mid ah magaalada Kherson oo laga cabsi qabo amaba ay sheegeen Ruushku inay gacantooda gashay halka Ukrainiyiintuna ay mitaa ka bedelan sheegeen. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa la sii wadaaga muuqaalkan saaxiibadiina. adna ku mahadsantihiin la socoshadiina iyo sida aad mar walba aragtiyadiina noogu soo gudbisa. dowladaha caalamka qaar ka mid ah gaar ahaan kuwa ku jira NATO ayaa waxay dadkooda uga digayaan in ay ku sii sugnaadaan gudaha wadanka Ruushka. dowladda Faransiiska ayaa waxay uga digtay muwaadiniinteeda in ay Ruushka ku sii jiraan, waxayna ugu yeertay inay isaga baxaan haddii aysan jirin wax muhiim ah oo halkaasi kaga sugan, maadaama colaad xun oo xilliga ay soo gabagaboobi doonto iyo xaaladeeda aan midna war loo haynin ay ka taagan tahay wadankaas. waxay sheegtay dowladda Faransiisku in ay tahay waxa ugu muhiimsan ee dadkooda ay ku badbaadin karaan naftooda inay halkaasi isaga baxaan. sidoo kale dowladaha Mareykanka iyo UK ayaa iyaguna digniino la mid ah ta Faransiiska waxa ay u direen dadkooda shacabka, waxayna u sheegeen in ay guud ahaanba isaga baxaan wadanka Ruushka ayna iska mamnuucaan meelaha ay dadku ku badan yihiin. sidoo kale waxa ay dowladahani soo saareen in diyaaradaha laga leeyahay wadanka Ruushka aysan gabi ahaanba wadamadooda ku soo saqajaami karin oo aysan hawadooda iyo wadankooda midna iman karin. tani waa mid ka mid ah culeysyada iyo cadaadisyada ay wadamada reer galbeedka iyo reer Yurub Ruushka ku hayaan, taasi oo ay ku doonayaan in isbedel uu kaga sameeyo dagaalka Ukraine. waxaa soo badanaya wali dalabyada kala duwan ee loo digayo wadanka Ruushka, kaasi oo lagaga doonayo in ciidamadiisu ay isaga baxaan wadanka Ukraine. magaalada dekada leh ee wadankaasi kuna taala badda madow ee Mariupol oo ah magaalo xeebeed ayaa waxaa wali ka socda weeraro isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn oo dhinaca cirka, dhulka iyo baddaba kaga socda. magaaladan waa magaalo dekada xeeb ku taala badda madow, waana mid ka mid ah goobaha uu doonayo Ruushku in uu mar si toos ah u soo gaaro si uu Ukraine inteeda kale uu uga duqeeyo badda madowna ay maraakiibtiisu ugu soo xirtaan iyo dekada Mariupol. maayarka magaalada waxa uu sheegay in aysan jirin wax marka la fiiriyo ciidamo Ruusha oo halkaasi la wareegay. waxa uuna sheegay in ay dhibaatooyin kala duwan gudaha magaalada ay ku haystaan. waxa uu xitaa qaadi kari waayay dhaawacyada wadooyinka guryaha maadaama aysan duqeymuhu kala joogsi lahayn, sida uu sheegay maayarka magaaladaas. wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushka ayaa waxay iyaduna ku adkaysay dadka rayidka inay isaga baxaan magaalada iyaga oo adeegsanaya waxa ay ugu yareen dariiqyada ama wadooyinka cagaaran oo ah kuwa nabdoon, halkaasi oo dadku ay isaga bixi karaan. arrintani waa mid ka mid ah bajajarinta iyo kicinta dadka lagu doonayo in lagaga saaro magaalooyinka. ciidamada Ruushkuna waxa ay wararka qaarkood sheegayaan in ilaa iyo hadda ay jiraan taxadar la xiriira dhinaca ciidamada amaba dadka shacabka ah in ay ciidamadu waxyeeleeyaan.
waxaa kaleeto oo jirta in Belarus iyo wadanka Ruushka saacadihii la soo dhaafay laga saaray ciyaaraha Olombikada 2022 kuwaasi oo ka dhici lahaa wadanka ka dhici lahaa magaalada Beijing. tani waxay keenaysaa in cadaadis iyo culays cunaqabatayno aan kala joogsi lahayn marba marka ka dambaysa la saarayo ciidamada Ruushka, taasina ay muujinayso in wadamada caalamku ay doonayaan cadaadis xoog badan. kulan guud oo qaramada midoobay ay ka yeesheen xaaladda Ruushka ayaa waxay ku cambaareeyeen duulaanka, waxayna ku dalbadeen Ruushku in ay ciidamadooda si dhaqsi ah uga baxaan Ukraine. qaraarka ayaa waxaa taageeray 141 wadan oo kamid ah 193 wadan ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee golaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa. kulanka guud ee qaramada midoobay oo ahaa mid degdeg ah ayuu goluhu isugu yeeray si xaaladda looga arinsado. intii ay socotay codayntu ayaa safiirka Ukraine ee u fadhiya qaramada midoobay waxa uu sheegay in Ruushku uu la yimid in amaba uu u soo diyaar garoobay burburinta iyo dhibaataynta dadka wadankiisa iyo guud ahaan Ukraine inuu burburi. waa kulankii ugu horeeyay ee tan iyo 1997 la isugu yimaado sidan oo kaleeto, waana midii ugu horeysay ee culayska ugu badan sanadihii la soo dhaafay ku keentay xaaladda guud ee golaha loo dhan yahay. duqa magaalada Kherson waa duqa magaalada Kharkiv aan idhaahde ayaa waxa uu sheegay in duqeynta Ruushka ay waxyeello culus u geysatay bulshada, laakiin waxa uu adkeeyay in aysan marnaba magaaladu gacantooda ka bixi doonin. waxa uu sheegay duulaanka uu Vladimir Putin wado in aysan marnaba suurtagal u noqon doonin, taasna ay noqon doonto mid aan haba yaraatee wax jixin jeexa ayna u samayn doon. Igor Terekhov waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay si joogto ah u duqeynayaan, gantaalo ugu garaacayaan goobaha ay dadku degan yihiin. waxa uu intaasi ku daray in ay u haleelay ama uu jiro goobo kala duwan oo gantaaladu ay ku dhacayaan dad shacabina ay ku waxyeeloobayaan. waxa uu sheegay in ciidamada Moscow ay bartanka magaalada ku qarxiyeen waxa ay ugu yeereen bam faaruq, kaas oo dadka lagu cabsi gelinaya dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen. waxa uu intaasi ku daray in weerarka Ruushka uusan marnaba joojin doonin, isaga oo sheegay in ciidamada Ukraine ay eryanayaan waxa ugu yeeray koox naflacaari ah. waxa uu ugu baaqay wadamada caalamka in ay sameeyaan wax walba oo ay ku joojin karaan duulaanka Ruushku uu wadankooda ku soo qaad. waxa uuna sheegay inay tahay mid kaliya ee xilligan xaaladda lagu dejin karo. xiisadaha isa soo taraya iyo culaysyada wadanka yaga saaran ma aha marnaba mid aan u dulqaadan doono, caalamkuna waxa fiicnaan lahayd inuu wax nagala qabto arrimahaasi ayuu yiri. waxa kale oo dad badan isweydiinayaan waxa ku dhacay kolonyadii militariga Ruushka ee ku wajahnayd magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi. waxa uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada wadanka Mareykanka in ay joojiyeen amaba ay dhinacyadaasi hor istaageen saadka iyo shidaalka oo ku yar, waxayna doonayaan buu yiri in ay isa soo habeeyaan oo ay shidaal kala soo qaataan. haddii hadda marka la fiiriyo xilligan iyo xaaladda waxa ay tahay mid kala duwan, ciidamada Ruushkuna dhammaan way suurto gali weyday qorshayaashii iyo qaababkii istiraatiijiyadeed ee ay ku talagaleen ayuu yiri sarkaalkan. 4 qarax oo waaweyn ayaa saacadihii la soo dhaafay laga maqlay gudaha magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine. macada cidda lala beegsaday iyo waliba khasaaraha ka dhashay. sidoo kaleeto waxaan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ku waxyeelowday halkaas. waxaa jira culaysyo kaleeto oo isa soo taraya oo la xiriira xaaladda Ukraine. dagaalku ilaa iyo hadda ma jirto cid saadaalin karta sida ay xaaladdu noqon doonto. waxaa kaleeto oo jirta in magaalooyinka ugu waaweyn wadankaasi gaar ahaan magaalada Kherson waxa dadka magaaladaasi
loo sheegay in loo furay xarun tabarucaad oo la doonayo in ay wax kasoo doontaan cunooyinka biyaha iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. waxaa la sheegayaa in halkaasi ay ka jirto dhibaato aad u baaxad weyn kadib markii ay dhammaan dadku dareemeen cunno yari maadaama magaaladan dhinacna looga bixi karin saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aan kala joogsi lahayn ay ku socdeen xaaladuna ay marba marka ka dambaysa sii cuslaanayso. dadka ayaa loo sheegay inay yimaadaan goobahaasi si ay uga helaan adeegyo kala duwan maadaama ay xaaladu xilligan ku adag tahay xiisaduna aysan joogsanin ilaa iyo hadda. wadanka Ruushka ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka jawaabay khudbadii madaxweynaha wadanka Mareykanka ee sanadlaha ahayd taasi oo uu kaga hadlay xaaladda dagaalada iyo sidoo kale guud ahaan waxaabihii u qabsoomay xisbiga dimuqraadiga iyo Joe Biden intii uu joogay. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Moscow waxa uu cadeeyay in madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden uu sheegay in waxa kaliya ee lagu bedeli karo cunaqabataynta hadda hadii ay shaqeyn weydo waa mid la saaray Ruushka in ay tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka. Lavrov oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in hadii uu dhaco dagaalka saddexaad ee adduunka uu noqon karo oo kaliya dagaal hubka nuclear-ka la isu adeegsado. xaaladu markan waxaad moodaa in ay sii cuslaanayso marba marka ka dambeysana hanjabaada culus ay wadamadu hawada isu marinayaan. ilaa iyo hadda waxa ay wararku sheegayaan in dagaalo culus oo aan kala joogsi lahayn ay ka socdaan magaalooyinka ugu waaweyn. ciidamada wadanka Ruushka inta badan kuwii afantariga ee lugta ahaa hadda dagaalka waa ay joojiyeen. waxaadna moodaa in ay door bidayaan duqeymaha dhan kasta si loo qabjabiyo ciidamada sidoo kaleetana dadka shacabka looga dhaadhiciyo in ay culayska iyo cabsida darteed isaga cararaan Ukraine. waxaa jira warar kaleeto oo sheegaya in wada hadallada halkaasi ka socda amaba ay doonayeen in xal loogu raadiyo aysan dhinacyadu daacad ka ahayn. Ukraine xilligan danta ayaa ku kalifaysa maadaama culaysyo kala duwan ay wajahayso xaaladuna ay aad ugu liidato ama ku xunta. laakiin waxaa jira caqabado kaleeto oo taagan oo xaaladda marba marka ka dambaysa sii murjin kara sida ay qabaan dadka arrimahan ku xeel dheer iyo waliba falanqeeyaal ka hadlay. wadamada caalamku ilaa iyo hadda waxa ay iyaguna soo jeedinayaan joojinta arrimahan. marka la fiiriyo xaaladda wadanka Ruushka ka jirta gudihiisa iyo cunaqabataynadan waa mid kamid ah waxaabihii la aaminsanaa in ay dagaalka soo gabagabeyn karaan amaba ay soo yareyn karaan. laakiin waxaad moodaa ilaa iyo hadda in xaalku uu weli goob dagaal iyo fagaaro dagaal oo banaanka la isu joogo wadamo shisheeyana ay ku dul dagaalamayaan shacabka reer Ukraine. Vladimir Putin uu midaas iyada fahansan yahay kana soo horjeed. guud ahaan kulanka golaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinkii ugu dambeeyay markii la qiimeeyo xaaladu waxaad moodaa in ay xilligan tahay mid adag ilaa iyo haddana aan la garanaynin halka ay gabagabadeedu noqon doonto guud ahaan marka la fiiriyo xaaladaha xilligan taag. dagaalku maalintii 8aad ayuu galay. mar kaleeto ayaa hogaanka madaafiicda iyo waliba sawaariikhda daran dooriga ah u dhacaya ay ka socdaan magaalooyinka Kiev, Mariupol, Dnipro iyo Kharkiv iyo waliba Kherson. waa magaalooyinkii ugu waaweynaa wadanka Ukraine. Ruushku arintaas iyada ah marnaba uma meeldayn. waxa aadna moodaa in xaaladu ay marba marka ka dambaysa ka darayso. ciidamada Ruushka markii la fiiriyo 7 maalmood oo dagaal la isku hoogay iyo waliba nooc walbana hubka la isu adeegsanayo uu ku socdo ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo cadeyn kara guulaha waaweyn ee ay gaareen. laakiin dadka qaar ayaa waxay qabaan in uu Ruushku dantiisii amaba waxyaabihii uu maaganaa mid kamida uu gaaray oo ah in xaaladda xilligan uu ka dhigay sida uu isagu doonay.
magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ukraine qaar ka mid ah waxaa la codsanayaa in bando lagu soo rogo waxaana jira in saacadaha soo socda wax walba ay dhici karaan si gaar ah Kharkiv oo madaxweynihii ku sugan yahay maamulkii dawladda iyo shacabka inta u badan ay ku sugan yihiin ayaa la doonayaa in cunaqabatayntaasi ay ugu horeyn saamayso si looga hortago duulaanka ciidamada Ruushka ee ku soo wajahan lama ogo qorshaha iyo istiraatiijiyadda cusub ee saraakiisha Ruushka iyo Putin ay dejin doonaan si loo soo afmeero dagaalka xaaladuna ay u noqoto mid ugu yaraan la soo gabagabay haddii uu Ruushku gaari lahaa guulo intan ka badan hadallada NATO reer galbeedka waa ay yaraan lahaayeen mana aysan jiri lahayn cid cadaadis inta hadda saaran ka badan saari lahayd sababtuna waxay ahaan lahayd maamul degdega ayuu doonayaa inuu dhiso markiiba taasina ay keento in xaaladuba ay noqoto wadan uu isagu leeyahay sidii horeba u dhacday goboladii dhawaan 2014 uu goostay dagaalkana uu kula wareegay laakiin sida ay xaaladu xilliga noqotay marna mid uu filayay ma ahayn Vladimir Putin ka wadanka Ruushka tan iyo kulanti dambe nabad ay galiyo.